But anytime you seduce teenage girls and make them be charged with adultery, make them hide your crime, why, you're not even a man, much less a divine man. So, and this is what he did. He took at least 9 that we know about. And I'm not speculating because he told this to me himself. Yes, that's why he wanted me dead, because he knew that as soon as I woke up, I'd tell it. galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mid ka mida saraakiishii ugu sarreysay ajaaniibta ku biiray ururka al-shabaab ayaa sheegay inuu ka soo goostay kooxdaasi subayr al-muhaajir ayaa v o eda u sheegay inuu ka mid noqday golaha shuurada ama wadatashiga ee xarakada al-shabaab subayr al-muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka ivory coast waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin faransiiska carabiga ingiriisiga iyo soomaaliga waraysigan oo uu siiyey v o eda wuxuu ku bixinayaa luqadda soomaaliga haaruun macruuf ayaa waraystay waxaana uu warbixintan inooga diyaariyey waraysigaasi dhowaan waxaa cod maqala soo dhigay baraha bulshada zubayr al-muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada al-shabaab kaasi oo dhaleeceeya hoggaanka iyo xarakadaba zubayr al-muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka ivory coast ee galbeedka afrika waxa uu soomaaliya yimid xilligii magaalada muqdisho iyo inta badan soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii islaamiga ahaa sannadkii 2006 waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka britain oo uu ku noolaa haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka al-shabaab kuwaasoo u xaqiijiyey in zubayr al-muhaajir uu ka soo baxay xarakada al-shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho galka baarista waxaa u suuro gashay inuu khadka telefoonka ku waraysta zubayr al-muhaajir waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada al-shabaab ugu horeyntii waxaa uga mahadcelinaha idaacada v o a fursada ay ii siisay inaan cadeeyo mowqifkeyga waxaan ka baxay xarakada 2013 laakiin meelaha ay macmuulaan waxaan ka soo tegay bisha October sanadka la soo dhaafay sababtaad uga soo tagtay waa maxay sababaha igu kalisay way badan yihiin waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin inay xukuumadaha muslimiinta gaalaysiinayaan iyo qof walba xiriir la leh inay hogaankooda isku dhaqaynin shareecada inay dhiiga muslimiinta daadinayaan inay shacabka dulminayaan inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay goormaad adi ogaatay inay al-shabaab qaldan yihiin sideed ku ogaatay inay khaldan yihiin waxaan ogaaday 2009 yani qaraxa oo hotel shaamo kadib waa gartay maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda qaraxa shaamow maxay ka dhaheen miyaad weydiisay madaxdooda haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen waan weydiiyey abu zubayr waan weydiiyey laftirkoodii arrin aan u diray wuxuu igu jawaabay in yani masalada oo tasaruska hadda calbeere uu sheegay taas uu igu jawaabay ma fahantay anigana waxaan ogaaday inuu khaldan yahay waa gartay waa yahay maxaad dadka uga sheegi lahayd al-shabaab oo aysan ka ogeyn ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan al-shabaab dadka waxa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada iyo inay dadka marin hadaadinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn waaya sidee al-shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa maadaama al-shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay laakiin waxaa la rabaa culamo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan waa gartay adi hadda qorshahaagu muxuu yahay aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin maslaxada dalka iyo dadka uusan ku jirin arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug waxaan rajaynayaa inaan nashriyo goordhow insha allah ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee ivory coast mise waxaad sii joogaysaa soomaaliya waayahay hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo
maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga al-shabaab haddii aad toos ula hadasho? horta dadka waxaa rabaa inaan u sheego waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay sabab u yihiin dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaasas ma aha. muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka al-shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen. shakhsiyan waxaan maqlay Zubayr al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi al-shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada al-shabaab Axmed Cabdi Godane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac, Ibraahim Al-Afqaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf, Fu'aad Shongole. kadib markii la dilay Ibraahim Al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013 waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubayr al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. xubnahaasi hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubayr al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka al-shabaab. ugu dambaynna dabayaaqadii sanadkii hore u suuro gashay inuu ka soo goosto xarakada. cumar maxamed abu ayaan waxa uu al-shabaab ka baxay sanadkii 2013 waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. waxa uu shakhsiyan aqoon u leeyahay Zubayr al-Muhaajir. Zubayr al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006 wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Etoobiyaanka ay ku soo duulaysay. wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqado badan yaqaan. laakiin waxaa ogahay in Zubayr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubayr iyo isku dhaceen 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013 uu ka mid noqday raggii xarakada xirxirtay markii Ibraahim Afqaan iyo Macalin Burhaan iyo raggaas markii dilaysay. ninka koowaad ay xirtay ayuu ka mid ahaa Zubayr Muhaajir. markaasoo xabsi ku jira ay ugu dambeysay. waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Godane iyo Roobow iyo gruubkii kooxdii isku dhinaca ahayd. Zubayr Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Godane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisii. halkaasoo isku qabseen masalooyin badan oo diin ah. markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday ina Godane, wuxuuna xukumay ina Godane Axmed Godane ama Abu Zubayr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego. kabacdina meeshaas ay colaada ka timid Axmed Godane iyo Zubayr uu qaado. Zubayr al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan wakhtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka al-shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista Zubayr al-Muhaajir. haaruun macruuf ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington.